ما شاء الله. بارك الله فيك شيخنا الفاضل، وزادك الله علما. إلهي سبحانه وتعالى ha ku barakeeyo. su-aashan ku xigta dhowr jeer bay nagu soo noqotay sheekh abudalxow. kolley choiceka mataqaanaayey oo kusoo gudbinaya insha allah biidni illahi kariim. waa su-aal ay gabdhuhu ka cabanayaan mar walba xagga raggayna mataqaanaa ku maaragtay qodsantaa. waxay gabadhu leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. waxaan salaamayaa sheekh abudalxa iyo walaalaha kaleba ilahi subxana wataala ha inoo barakeeyo, dhammaan walaalaha kula daadaheynaya barnaamijka. ila tale aan kula taliya talada ma qaadan. waxaan ahay bay leedahay gabar walaalaha qolka dhegaysta oo ku xiran. sheekh aniga murugo ayay haysataa. waxaan guursaday nin xaas leh. xaaskiina africa ayay u joogtaa. aad iyo aad uu aniga igu fiican yahay bay leedahay xagga dhaqanka, laakiin ma sheegan karo oo ma oran karo waa ninkaygii. hadda uur baan leeyahay bay tidhi. waxaa la igu dhahaa ma guursatay? maya ayaan idhaahdaa. subxaana allah bay tidhi. yacni sheekh waxaan ka baqayaa xagga allah subxaanahu watacaala inaan ka gelay dembi weyn. yani maalin walba aniga oo xaas leh oo mataqaanaaye uur leh ayaan waxaan ku hayaa dee layma qabo. been been sheegayaa bay tidhi. waxay leedahay way iska dhacday arrintaa iyada qadar ilaahay bayna ku dhacday bay tidhi inaan guursado arrinkaan aan dhex galo. ninkii iskaaya baray markii hore si kale ayuu iigu sheegay bay tidhi, oo wuxuu igu yidhi de gabadha africay joogtaa. mar hadday africa joogtana dee maxaan ku idhahdaa ayayta halkan joogtaa mid sharciyeysan bay noqon kartaa iyo ninkeedu way sheegan kartaa. laakiin ninkii ma ogola. aniguna been kuma jiri kara bay leedahay 24/7. marka maxaan sameeyey? maxaad igula talin lahayd bay leedahay sheekhuna alfaadil. arrintan kuma jiri karo, murugana way iga haysataaye. tafadal mashkuuran wamaajuura. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مسألة كسابسا nin xaas kala qabay ayaan guursaday. xaaskina africay u jirtaa, anigana waa ii fiican yahay, laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay inaana dhihi karin waa ninkaygii. ma garanin sababka aada u dhihi karin waa ninkaygii ma aana fahmin. magaalada ma muslimiinta kale caadiga aba sababka keenaya inaadan dhihi karin waa zawjkaygii? ma asagaa ku yidhi haddaad dhahdo waa ninkaygii oo waa la iqabaa waan ku furayaa? hadalkuma noocaas baa u dhacayaa? mas'aladu waxay u baahan tahay in la tafsiiliyo. si kastaba ha noqotee markaad ninkan guursanaysayna waad ogeyd. hadduu nin uu kuu keenay, ninkii kuu keenay ninkana kaaga sokeeyood shukaansateen, maxaad ku wada hadasheen? inuu xaas kala qabay waad ogeyde, ma wuxuu ku yidhi waan ku qarinayaa markaasaad ogolaatay? haddii in lagu qariyo aada ogolaatay, calaacalka hadda yaalla muxuu yahay? adaa ogolaaday. maxaad ku wada hadasheen ninka markaad shukaansanayseen? wuxuunbaa isku ogeydeene. soo daayo runta sheeg si jawaab fiican laguu siiyo. midda kale uur baan leehay mana sheegan karo, kelima la fahmi kara maaha. gabadh soomaaliyeedana dabeecaddeedii dabeecad ka duwan weeye su-aashu. gabadha soomaaliyeed waxaa lagu yaqaan inay tahay gabadh geesiyada, oo haddayba nin leedaho uur u leedahay inay banaanka isa soo dhigto dhooda ninkaas ay qaba si aan xaaraan loogu tuumin, oo mataqaanaa inay ilmo xalaal aan ahayn inay caloosh ku wataan mataqaanaa. walidaalika waxaan kugula talinayaa inaad dhahda ninkana iqaba, wakaa ninkaygii. xalaal maalin cad baa la qashaa. ilmahana asagay oorka ugu hayaa. meher iyo xalaalna waan isku guursanoo marag iyo makhaalaatigiina wakaa. ma hadduu ku dhaw haddaad i sheegtay waan ku furay, ilaahay tabaaraka wa tacaala baa wax ka wanaagsan buu kugu barwaaqaynaya. haddii kalena inaad hooskaaga ka cararta ma aha. reerkaaga dhaqo, ninkaagana u sheeg. midda kale waxaan la yaabanaya haddaad adigoo dumara aada dhihi karinba waa lay qabaa, asagu marka ma inuu yidhaahdaa ma qabo oo markaaba waad kala furantiin miya? ila adiga ku gartayba qof dumara baa tahay. haddaad dhahdo uurkan yaa leh,
ma lagu qabaa mayaa tidhi aduu gartay wax ma furtid laakiin talow meeshaad adigiiba ka baqayso adigoo weliba uur leh oo weliba zine iyo xubaan lagugu tuumi karo haddaadan iscaddaynin meesha aad ka baqayseed leedahay layma qabo asagii marka talow markii la weydiiye muxuu dhihi naagtaa ma qabo wuu dhihi oo waaba furan tahay miya masaladaas si tartiiba culammada kula joogta uge culammada kula joogtana maxaa la yidhahdaa iken weydii mas'aladani si kastaba ha noqotee mas'ale xalaala ma aha masaladan la sheegayo nin oday ah oo muslima soomaaliyeed haddii uu gabadh muslimada guursadaaye asalka waa in la og yahay guurka xataa soomaalidu waxay khudbasirada dhihi jirtay khudbasirada soomaalidu waxay dhahdo oo gabadha weligeeda laga doontay laakiin dariska iyo laga qariyo islaamtii kale iyo laga qariyo xataa markii ay xaqiiqada timaado waa la ogaan jiray oo uurba hadduu soo baxo anigu ku sheegi maayo shanta iyo ku sheegi maayo soomaalidu dhahdaa anugu kaaba aamusaye uur 5 bilood ayuu iskugu soo bixin gabadh digdiglo caloosh halkaa marayso yaa uurkan leh gabadha soomaaliya way ku qasban tahay xataa haddii marka hore khaldantay waxaad hoos u qarsatay inay dhahdo darisow ogaada uurkaan ninkaasaa iskale ninkaasaa i qaba saasaana badbaadaa sidaas baana diina saasaana adiga ku wanaagsan oo ku fiican ragguna dumarka yayna ku ciyaarin muslimaadka ah adiguna adigaa marka hore hoos isu dhigayo isqariyey soomaalida hore waxay u tidhi waxaad qarsato wuu ku qarsadaa dhowr jeer baan gabdhaha kala hadloon idhi war nimanka markay idin yimaadaan oo ay ku dhahaan waan ku qarsanayaa waxaad dhahdaa oo ma islaanti kalaan ka xuma war niyow laba kamid dooro nin raga iska dhigo banaanka soo istaag awoodaada iyo dhaqaalaha iyo xoolaha intaad sheegto war waxaasaan awoodaa hasaa igu dhaqo muslimna ha ogaado waa weji la garto soo saas maaha iska joogo islaantaada keliya iskala joog soo saas ma hadda wayba soo dhaaftay oo gabadh uur labaad leeda maba sheegi karaba waa wax cajiib ah wa gabadhay adiga aqbalay marka hore in lagu qariyo soo saas ma adaa aqbalay marka hore ninka markuu guursanayo inaad dhahdo okay way ka anugu banaankaan alla aabaha waa laga doontay haye akhyaarta ogaatay aniga aroos yaroo 20 qof allaha ka dhiga ii dhig waa in la ogaada waka marka gabdhaha intay rag u yimaadaan dhahayo ha isheegin shibdhe iqari meeqanarin ayagoo calacalay marka dambe war ilaahay kuma qarinina banaankiisa soo dhig haddii kale isniin iyo khamiis iska soono ciirtaada iska cab iyo malmalkaaga wabillahi atawfiiq